هدهد يا أف ميشار كان قبيل كهوريو وحبكو هيلي ميسيدي وادهبو سنتي جوب. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. islaamku intuuna iman ka hor waxa jiray qabyaalad iyo colaad u dhaxaysay dadkii waqtigaasi joogay ee Carabta iyo Cajamta ahaa. markay islaamka soo wada galeen oo ay diinta qaateen waxa halkaas ka baxay sinaacibkii u dhaxeeyay ee sababta u ahayd diin la'aanta iyo gaalnimadu. haddii aanu si kooban u qeexno macnaha qabyaaladda waa si xun isticmaalka qabiilka, yacni waa iyadoo qabiilka si qalad ah loo adeegsado. qabyaaladdu waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu liita dhaqannada adduunka kaasi oo baabiin kara bulsho kasta. haddaba bulshadeena Soomaaliyeed waxa uu Ilaahay ku galadaystay nimcooyin aad u fara badan. waa dad isku diin ah, hal luqad ayay leeyihiin, hal dhaqanna waa ay wadaagaan. dhanka kale Ilaahay wuxuu dhigay deegaan aad u ballaaran, sidaas oo ay tahay haddana waxa ay si daran u adeegsadaan qabyaaladda. dhab ahaantii qabyaaladda waxaa adeegsada qof aan garanin cidda uu yahay, aaminsanayna inuu leeyahay awoodo dabiici ah oo uu ku gaari karo waxa uu rabo inuu qabyaalad ku gaadho. qofka qabyaaladda isticmaala ama wehel ka dhigtaa ma garanayo awoodda naftiisa ku jirta, iskumana kalsoona inuu shakhsi ahaantii wax qabsan karo oo uu guulaysan karo. wax yar taariikhdan dib ugu noqo dawladdii facaweyneed ee Andalus ee ka jirtay Spain iyo qaybo ka tirsan Portugiiska. markay dadkeedii adeegsadeen qabyaaladda ee ay u kala baxbixeen beelo ayaa kiristaankii ka xigay dhinaca waqooyi ay ka faa'iideysteen oo ay mid u qabsadeen, iyaga oo markii dambe gabi ahaanba dhulkoodii laga qabsaday kadibna laga qixiyay. intii aan qixina lagu amray inay diinta islaamka ka baxaan, afka Carabiga iyo labiska Carabta iyo islaamkaba ka fogaadaan. qofkii lagu helana waxa lagu xukumay jirdil xun, kadibna isagoo nool ayaa la gubay. waxaasoo dhan dadka muslimiinta waxa ugu wacnayaan odhan karaa qabyaaladda iyo midnimo la'aanta, waayo intii aan isticmaalin qabyaaladda ee ay midaysanaayeen kumayna soo dhacayn cadowgoodu, manayna soo hawaysan karin, iska daaya iyaga ka cabsan jireen oo ay jisyada u keeni jireen. haddaba baasha qabyaaladda ah rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam waa inaga reebay, wuxuuna yidhi dacuuha fa innaha muntina, iska daaya waa qurune. sidoo kale waxaa laga wariyay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi laysa minna man daca ila asabiyya wa laysa minna man qatala ala asabiyya wa laysa minna man mata ala asabiyya. naga mid ma aha qofkii u yeedha ama sheegta qabyaalad, naga mid ma aha qofkii u dagaalama qabyaalad, naga mid ma aha qofkii u dhinta qabyaalad. islaamka ayaa dadka sime una sheegay inay isku jeclaadaan diin, iskuna nacaan diin xumo. islaamka ayaa diiday dadka in lagu naco xagga abuurista iyo laxaad yarida. islaamku ma ogola in dadka lagu naco cid ama qabiil, jinsi iyo farac toona. islaamku wuxuu sheegay in kaliya lagu kala sarreeyo cabsida Alle, ayna siman yihiin dadkoo dhani. yaa ayuhannaasu dadow innaa khalaqnaakum waxaanu idinka abuurnay buu Ilaahay min dakarin wa unhaa, ku lab oo nebi aadamah iyo tu dhadig oo xaawo ah. wajacalnaakum shucuuban, ummadaannu idinka dhignay, iyo wa qabaa'ila, qabiilooyin ka sii hooseeya, litacaarafuu si ay isu garataan. inna akramakum, qofka idinku mudan ama idinku laandheeraysan ama idinku sharaf badan cinda Allaahi Ilaahay agtiisa, atqaakum, waa ka idinku cabsi badan. inna Allaha caliimun khabiir, Ilaahay baa wax walba ogsoon, shay walbana xogagaal u ah oo waxba ka qarsoomayn. ugu dambayn dadku markay diinta ka durkeen ayaa waxaa soo laabtay nacaybkii macna darrada ku fadhiyey. xalkuna inagama foga waa kaliya ku laabashada diinteena islaamka.